wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista iyo xogeyaha guud ee ururka afka Faransiiska ku hadla Michel John ayaa gaaray jaamacadda Djibouti waxaa kolkii ay gaareen ay hortaba booqdaan xarunta Kombis ee jaamacadda Djibouti waxayna fursad u heshay inay la kulanto barayaasha iyo ardayda xaruntaasi. xogeyaha guud ayaa sidoo kale la kulantay ardayda wax ka barata waaxda kaydka ee afka qalaad loo yaqaan documentation oo ay ka wada hadleen firfircoonida ardayda iyada oo ku dhiirigelisay waxbarashada. waxay sidoo kale looga warbixiyay muhiimiyadda afka Faransiisku uu ku fadhiyo dhalinyarada iyo haweenka waxayna booqashadeeda ay ku soo afjartay xarunta Kombis ee jaamacadda Djibouti. waxaa xusid mudan in xaruntaasi ay ka shaqeyso xoojinta iyo horudhiga xaaladaha waxbarasho ee ardayda iyo barayaasha iyo waliba shaqaalaha maamulka jaamacadda Djibouti. halkaasi ayaa waxaa laga siiyay macnooyin kala duwan iyo habka ay u shaqeyso xaruntaasi shaqo ee jaamacadda Djibouti iyo jaamacaddii ugu horeysay ee dalka oo bixisa waxbarasho tayeysan. xogeya Michel ayaa sheegtay inay u bogtay booqashada ay ku soo gaadhay jaamacadda Djibouti waxayna sheegtay inay ka go'an tahay taageerada iyo dadaalka ay ugu jirto horudhiga afka Faransiiska iyo garabsiinta jaamacadda Djibouti iyo guud ahaan waxbarashada dalka. wareysi aan la yeelanay xogeya Michel ayaa waxay sheegtay in ahmiyadda weyn u tahay indhaynta iyo dadaalka weyn ee Jamhuuriyadda Djibouti ay ku tallaabsatay dhinacyada tababarsiinta iyo tacliinta sare intaba. waxaan sidoo kale u bogay tacliinta sare ee gaadhay heerka sare ee ugu sarreysa firfircoonida badan sida loo hordhigayo qoraalka iyo dadaal gelinta xagga cilmiga baarlaadhista iyo weliba in ku tallaabsado howlaha teknolojiyadda casriga ee nibriga. waxaan ku yidhi ardayda aan la kulmay in nasiib badan ay leeyihiin